waa 75 jir intii ugu qiimaha badnayd cimrigiisii galbaday xooggiisii kama dambayn oo bari hore ayuu hawaraaca sidii neef ruqa ah ayay murqihiisii u doorsoomeen ciddii horay u taqaanay iyo cid kasta oo maanta eegtaahi waxay arki karaysaa madaxiisa muruxsan oo ay timaha teelteelka geesaha kaga yaalliin iyo garkiisa iyo wejigiisa inta isku dulmayday u ekaaday noolayaashii xin iyo bin ee aadanaha ka horreeyey shantii safarood ayuu ku cadaadinayaa dhabankiisa nuxurka beelay ilmana labada dhinac ayay ka qubanaysaa wuxuu fadhiyaa saalootada guri ka kooban 3 maqsin 25 sano ka hor ayuu qoyskiisa Kanada la soo gala qaxooti ahaan ayaa looga soo qaaday xeryo qaxooti oo bartamaha Itoobiya ku yaala wuxuu burka u tuurayay qoys ka kooban 6 ruux isaga xaaskiisa iyo 4 carruur ah 3 rag ah iyo inanta xaaskiisa ku dhalmadaysay 9 sano ka hor ayuu curadkiisii Kanada dil ku geysta kadibna Ingiriiska u baxsada waa dambe ayaa darooga lagu qabta 60 sano ayay ku xukuntay maxkamad ku taala Liverpool inankii xigay wuxuu ahaa kan ugu quman xubnaha kale ee qoyska wuxuu ahaa nin akhlaaq badan oo diini waa halkeeda ee masaajidka ku xiran wuxuu ahaa nin afgaaban oo dadka ixtiraama 2014 ayay saamaysay khudbaddii wadaadkii Abuubakar al-Baqdaadi uu ka akhriyay salaadii Jimcaha masaajidka Mawsim ee dalka Ciraaq waxa uu ka mid noqday kumanaan dhalinyaro muslimiin ah oo galbeedka ka gurdan raacay si ay dogobyo u sii saaraan jihaad ku sheegay kooxdii Daacish ay ka oogtay gobolka xasarad u joogga ah ee bariga dhexe sannadkii 2017 ayuu ka mid noqday koox maleeshiyaad ah oo ururka neeto duqayn kula beegsatay deegaanka quuta sharqiya ee ciidda Siiriya inantii reerka u yarayd iyadu waxbay barata waxay noqotay ruux tacliinta u dhagan nugul natiijooyin la mahadiyeyna ka keentay iskuulada Alberto ee ay isaga dambaysay walow ay noqotay ruuxaas dadaalka badan haddana waxay ka salkacday hidaheedii asalka ahaa iyo wixii ay diinta u taqaanay waxay deli ka tuuriyeysay xijaabkii lagu uleyn jiray markii ay joogtay xeryihii qaxootiga ee Itoobiya waxay isku dayday inay u noolaato sida hablaha kale ee reer Kanada waxay dareentay xorriyad buuxda iyo in aysan ruux naseeto ugu jirin dhowaan ayay ahayd markii qoyskeedu ku qoonsadeen boyfriendkeeda Gabriel Yasiid oo ah inan Eritrean ah caradii ay maalintaas qaaday ayay reerka dhan isaga guurta gurigiisana raar ka dhigata waan ay galeen xubno ka madax bannaan qoyska ayaa ku soo qanciyay in ay waalidkeeda la noolaato saaxiibkeedna ay si xor ah ugu raaci karto halka ay doonto oo ay jacaylkeeda ka heli karto inankii saddexaad xalay ayaa la dilaa waana midda Saleebaan uu dhafoorka la haysto dadku waxay arki karaan murugada foolkiisa ka muuqata laakiin isaga keliya unbaa og dambaanburada laabta hoose ka hulaaqaysa Khaalid oo ahaa inanka keli ah ee reerka u jooga kadib geeridii iyo xariggii labadii wiil ee ka waaweynaa ayaa caawa lagu toogta afaafka hore ee laga galo baar shiishadda lagu cabbo oo uu ka mid ahaa macaamiisha ku caawaysa wuxuu Saleebaan dareemayaa gablan iyo guri ba'ay wuxuu la fajacsan yahay guuldarradan heshay goortaan cimrigiisu sii galbanayo dhimashada Khaalid uma ahan geeri oo keli ah ee waxay uga dhigan tahay dabajarid silic leh oo qoyskii uu Afrika kala yimid ka nabad guurisay horay wuxuu u ahaa nin qiyam leh oo loo soo gala joogsado dawladdii burburtay oo uu aaminsan yahay in ay silacaan iyo bayhoofka u soo waariday wuxuu ka ahaa korneyl nabad sugid ah oo wardoonka loo carbiyey wuxuu ahaa dirsane idman oo hay'adda dhexdeeda ka sheegan wuxuu ahaa gacanyare ay ku kalsoon yihiin labadii beebcab Axmed Dafle iyo Axmed Jilacow wuxuu ahaa nin hawlkar ah oo hujuumka shisheeyaha u caaboon shaabugla dhicidda maatidana ku dhiiran kolkii xamar mooryaantii ku galgalatay ayuu Itoobiya iska dhiiba 5 sano oo uu Addis Ababa deganaa inta badan camal la'aan buu ku ahaa marka laga yimaado bilo kooban oo uu ka shaqeeyay guriga Mala Sanaawi
wuxuu malas iyo aqalka aradkiile ka caawiya dagaallo ka dhacay waqooyiga iyo koonfurta Soomaaliya labadaba. wuxuu ahaa nin caqli badan oo garanaya sida ay Soomaalidu u fikirto iyo tabta iyo xeeladda lagu sii hulaaqin karo cadaawad lagu dhex abuuro ummaddan sanka dhuuban ee geeska Afrika ka ceelhaysa. 25 sano ka hor ayuu Kanada u soo hayaama. deegaanka Calgary ayuu laxos ku ahaa tan iyo waagan. iskuma uusan hawlin fahanka bulshadii uu yimid ee wuxuu noqday mas'uuliyad laawo dhexda ka galay goobaha fadhi ku dirirka. xafladaha meherka ayuu camiri jira, masaajidka wuu ku xirnaa, inta uu dibadda ka joogana qabyaalad iyo isku dir ayuu walaaqi jira. dabayaaqadii dayrtii 1949 ayuu ku dhashay banka Tuunyo. wuxuu ka dhashay beel xoolo dhaqato ah oo dhibicda la gurguurta. bankan Tuunyo iyo dhulka uu ooga gale ayuu ku hanaqaada. waa dhulka qooqa iyo kibirka lagu tarmiyo. waa dhulka gobonnimada lagu tamadiyo. waa dhulka muruqweynta geeleyda ah ay xiniyaha isugu toodhooto. waa ciidda aabiga iyo gardarrada. waana halka uu ka baxo geedka dadnimada iyo xilkasnimada. banka Tuunyo waa ciid isdiidda badan balse la isku waafaqsan yahay in ay tahay degelka ragga iyo raglamoodka kala socda. geeljiro dabadhoon ah ayuu ahaan jira. galduur iyo gaashaamo, haradigeed iyo haradoollo, hawd iyo daadhmadheedh ayuu geel horweyn iyo haleelaba leh gaala bixin jira. muqdisho ayuu ciidanka xoogga uga biiray goor dambe, waxa uuna tababar u tegey dalweynihii midowga Soofiyeed. waxa uu u soo joogay maalmo xun oo qadhaadh. waxa uu sidoo kale u soo taagnaa maalmo baraare iyo ladnaan uga astaysan. walow da'diisu ay horay u badatay, xasuustiisiina ay boodboodday. wuxuu garan karo waa ay iska yar yihiin, wixii uu go'an karana waa ay tirsan yihiin. murugada ay ku reebtay geeridii Khaalid iyo walwalka uu ku hayo maydkiisa qabowjiyaha ku jira, ciidanka booliskuna aysan weli ogolaan aaskiisa, ayaa maankiisa dhalan rogaya. wax xilaadin ah ma hayo, maskax gorfaysana kuma jirto. murugadii baa dhabanaanisay oo dib ugu carraabisay toobiye haloosin ah. tagtadii ayuu u aroora isagoo cagta ku haya waddadii hantaaqiya habaar waalid ee murugada laga tabcan jiray. maalmo badan oo madoobaa ayuu soo maray, balse tan baa uga sii madow. waxa uu in yar ku dul hakaday dharaar ka mid ah gabashigii 1972. waa galab axad ah. waxa uu ku sugan yahay xarun milatari oo ku taala miyiga gobolka Donbass ee dalweynaha Ruushia. waa galabtii ugu horraysay ee uu khamri dhedhamiyey. dhiil foodka ah ayuu ka durduurtaa. 100 milimitir oo alkolo ah baa dhiiggiisa dhex qaaday. jirkiisii ayaa isku dayey inuu iska caabiyo walaxdan ganawaaga ah ee dibadda ka soo weerartay. sakhraddii ayaa ka tustay inuu hal cabbaara lugeeyo. dibadda ayuu uga baxa xaruntii tababarka ee uu ku sugnaa. kayn shareeran ayuu dhex qaada. waa geedo muruxsan oo aad moodid Soomaali qaaqaawan kadib markii barafku caleentii iyo quruxdiiba kala daadegay. 3 maalin ee la soo dhaafay baraf ayaa si xiriir ah halkan uga da'ayay, balse saacadihii la soo dhaafay waa uu qaaday. isagoo dheelalowsan, khamrigiina weli jirkiisa ku sii fidayo ayuu kayntii ka dhammaada. wuxuu ku dhex dhacay bannaan fidsan oogadiisuna siman tahay. waa dhulbeereed qamadiga lagu abuuri jiray, haddase barafka ayaa daboolay. dhan kasta oo la eego waa ilku wareertay. aragtida ayaa soo loodsamaysa iyadoo waayaysa wax ay ku hakato baaxadda dhulka awgii. bankaas ayuu dhex saqaafa qorraxdii oo aan cirka ka muuqan, balse la dareemi karo in ay weli ifka joogto ayaa shalwatay. oo maxay u shalwan weyda? soo lama gaarin meertadii ay oosha guudka ku sagootin jirtay. mugdi baa cirkii iyo dhulkiiba daboolay. barafkii madoobaana karan ayuu dib ula soo noqda. walow uu daqiiqadii hore si khafiif ah u da'ayay, hadda barafkii wuu xoogaystaa. dabayl guuxaysana waa lagu lara. kolkaasuu baraaruga. waxay caado u leedahay khamrigu in ay hoos u dhigto awoodda khamriye cabka. kolka cimiladu ay qabow isku beddesho, sida midda caawa uu Saleebaan dhex tallaabsanayo. gacmihii ayaa jareeyey, lugihii ayaa tabar beelay. seedihii dhabarkaa inta dabcay bilaabay in ay socdaan oo halkoodii ka dhaqaaqaan.
wuu diyoobay, halkii uu ka yimidna waa uu garan waaya. 6 saacadood ayuu ku jira nolol aan ka sokayn cadaabtii Samhariira ee qur-aanka lagu sheegay. Isagoo ay naftu ku sii dabayar tahay tabartiisuna idlaatay, ayay 12kii habeennimo ku soo baxeen 2 beerwale oo goobta ka dhowaa. Iyaga ayaa laamaha ammaanka wargeliyey. Goor dambe ayaa barafka dhexdiisa laga qaaday, kooxaha caafimaadka ayaana samata bixiyey. 3 bilood ayuu ku jira nolol barsaq ah oo xayaato iyo geeri u dhaxaysa. Habeenkaas baas ayuu cabbaar dul istaaga oo ka fakera. Cimilada Calgary galabta waa baraf, oo waxayba soo xasuusinaysaa tii Donbass iyo dugsigii tababarka ee KGB-da. Saleebaankii ma aha, da'duna da'dii ma aha. Wuxuu isweydiinayaa wuxuu u noolaa markii hore. 4 carruura iyo hooyadood ayaan Kanada la soo gala. Inantaas ayaa ka nool, iyaduna gacan iiguma jirto. Xataa inaan aabbaheed ahay iima oga. Wiilashii gacan iiguma jiraan, aakhiro ayay aadeen. Kii Siiriya ku dhintay waxaa la yidhi wiil buu Ciraaq ku dhala, meel uu ku nool yahayna ma aqaan. Isirkaygii muxuu u dabargo'ayaa? Talow maxaan galabsada? Waa maxay ayaan darradaan igu habsatay, raadkaygiina ifka ka tirtiraysa? 70 sano ayaan noolaa. Waxaan ahaa nin sharaf leh markaan dalkaygii joogay. Iska daa Soomaali xataa caddaanka ayaa xafiiskayga saf u soo geli jiray markaan NSS joogay. Maxaa goobtan baas ii bahardaadiyey? Aaway haybaddaydii, masaanaa ii dambaysay. Hadda ma dhimashaan sugayaa? Oo maxay tahay noloshaydu qiimaha ay ku fadhido kol haddaan laygu abtirsanayn, oon aabba lay odhanayn, awowwana laygu yeerayn? Ma khasaare ka weyn baa jira inaan caawa garbahayga ku arki waayo wiilal aan anigu dhalay oo qooqaya, oo tabcanaya, oo tamashlaynaya? Su'aalahaas shaacu ka baryey ayuu xiskiisii ku mayd garaaca. Waa kuwii uu weyddiin jiray kacaandiidka iyo qarandumiska godka jilacow lagu soo xidho. Waa kuwii uu maatada ku harowsan jiray markuu kornaylka ahaa. Wax jawaab ah muu helin, waayo cidda uu bajinayo ma ahan Soomaali uu ka xoog badan yahay, ee waa xiskiisii oo gaboobay. Mar qura ayuu ku hambabara aadaanka salaaddii maqrib oo TV gidaarka ku naba ka yeedhaya. Wuu weyse qaba kolkii uu goobtan fadhiistay. Kor ayuu uga joogsaday kursigii uu murugada kula dul fadhiyey. Darin hortiisa taallay ayuu kala baxsada oo inta dul istaagay foolka saara, goob uu u malaynayo in ay Maka ku beegan tahay. Dibnihiisu waxay la dhaqdhaqaaqayaan Allow tooba iyo waa iska xaal adduun.